qabtay waxaan idinka mahad celinayaa muddadii labada cisho ahayd ee aad waqtigiina qaaliga ahaa u soo hurteen inaynu halkan wada joogno waan idinka mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa qolada inooga timi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo tareerinkan labada cisho ah inoo soo diyaarisay ku saabsanaa sidii haweenka gobolka Sool ay uga qayb gali lahaayeen siyaasadda iyo hogaaminta wanaagsan iyagana aad ayaynu ugu mahad celinaynaa muddadii labada cisho iyaguna halkan tareerinka inoogu wadeen waxaan kaloo u mahad celinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland oo nasuduwo uga ahay anigu gobolka sida ay had iyo jeer u barbar taagan tahay haweenka xagga horumarka waxbarashada inay had iyo jeer ay tahay xubin u taagan inay haweenka kor u qaado iyo arrimaha bulshada laftigooda wasaaradda laftigeeda waynu uga mahad celinaynaa waana mid ay u abuuran tahay innaga haddii aynu nahay haweenka gobolka Sool waxaa laynooga baahan yahay inaynu yeelano han siyaasadeed oo aynu kaga qayb galno doorashooyinka run ahaantii waynu lahayn oo waxaynuba nahay gobolada ugu soo saarista badan haweenka doorashadii xildhibaanada waxaynu nahay gobolka soo saaray 2 haween iyadoo aanay Hargeysa soo saarin hal kaliya inagu waxaynu nahay kuwa soo saaray 2 iminkana way jiraan hablo u diyaarsan inay baarlamaanka ka qayb galaan waxayna la gudboon sidii aynu hablaheena u soo saari lahayn inagu hadii aynaan isxastiin aynu inagu dumarka soo saarno cid inaga badan inaga ma jirto hadaynu haweenahana inaga isku darnay dadka laga tirada badan yahay ilaahay inagu ma tarin abwaanad Sacdiya Carays Ciise oo kamid ah haweenka ku qayb galay kulankaas ayaa dareenkeeda ku cabirtay maanso ku saabsan doorka haweenka iyo waliba arrimaha siyaasadda haweenka hadaynu nahay haybad baan leenahay harmuudkii qaranka oo hawl walba u taagan oo hantina lagu siinino heegan calanka u ah iyo habeen dhalad baanahay anaga waa nala hagraday xaqeeniisa weela hadii kale waxaan lahaa haweenka hadaynu nahay waxaan nahay geed harweyn anaga magacna la ku hela nalana haraamaya raggu inay naharsadaan hadana hoos naga dhigaan miyay naga heli karaan hadii kale waxaan lahaa haweenka hadaynu nahay sidaan nahay awr hayina haamihi baan wali sidna dhabarku way hoolan yahay cid naga hoos qaaday iyo cid noo og haraadka yaga ilaa hadda lama haye nafteenaba aan hubee xaqeeniisa u hela hadii kale waxaan lahaa haweenka hadaynu nahay habeenkaan dhalanayba raggiina tan iyo intii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cali maxamuud axmed cali sandulle oo xilkii la wareegay ayay tahay kulankani kii ugu horeeyay noociisa ah ee lagu boorinayay inay ka qayb qaataan siyaasadda iyo doorashooyinka ee loo qabto haweenka ku dhaqan gobolka Sool waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Somaliland la sacanood